saaxiibayaal soo dhawaada channelka like iyo subscribe tuba waa xaqiina siina share gareeya waad ku mahadsantihiin inaad daawataan markastoo aan halkan soo galno muuqaal annagana waa noo dhiirigelin daawashadiina Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenya waxay caan ku tahay bisadaha waaweyn. Kani waa sayidka ugaarsadaha waana harimacadka. waxaanay takhasus u haystaan ku ugaarsiga xagga xawaaraha iyo isjajabinta xagga jirka marka ay ugaarsanayaan ugaadha yaryar malaha culayska iyo miisaanka libaaxa oo kale si ay dhulka u dhigaan ugaadhooda labkani waa ka duwan yahay waayo ma ugaarsado isaga oo kali ah waxa uu isticmaalaa qaabka kooxda ah halkan ugaarsadayaashu ma aha laba laakiin waa saddex dhammaantoodna waa walaalo waxaanay leeyihiin qorshe isku xidhan si ay taa u sameeyaan waa in ay ka yaabsadaan ugaadha ay ugaadhsanayaan waxa ay barteen qaababka loo wada shaqeeyo si ay ugu sahlanaado in ay dhulka dhigaan ugaadha waaweyn haddaba halka aynu maanta u soconnaa waa halkan qorayo waa shimbir ka dheer kana culays badan laban laab harimacadka ma duuli karto laakiin way carari kartaa marka ay khatar soo food saarto goroyadan dhadigayhi waa mid aan ogayn khatarta ku xeeran cambaro way daaqaysaa warba ma hayso xataa iyaga oo saddex ah haddana weli khatartu kuma yara harimacadkan haddii midi dhaawacmo labada kale ma rajaynayaan inay qabtaan ugaadhsadan u weyn taa ka soo horjeedkeeda haddii ay ku guulaystaan hawshan abaalmarintu ma yaraan doonto goraygii labka ahaa wuxuu arkay mid ka mid ah saddexdii waalaha ahaa hadda waxaa si dhaqso ah u soo weerar tagay saddexdii harimacad dhadigu maba oga khatarta jirta taa badalkeeda harimacadki wuxuu weerar kuu bedelay xaggeeda dadaaladii la mideeyey waxa ay keentay in ay dhulka dhigaan xayawaankan awoodda badan xataa iminkoo ay dhulka taallo waxa ay laad naflacaari ah ku qaraacaysaa mid ka mid ah harimacdada ilaa iminka walaalihii waxa ay joogaan guul umana eega in gorayadu heli doonto badbaado